barnaamijkan oo ahaa mid nabadeed ayaa dadka reer Cadaado ay ku muujinayeen dareenkooda ku aadan sida ay ugu xun yihiin hadalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo koodii bishan Luuliyo ku sheegay in Soomareeb lagu qabanayo shirka dib u heshiisiinta iyo midka ah doorashada Galmudug dadkan oo watay boorar ay ku qoran yihiin maqaamka Cadaado waa in la cadeeyaa ayaa dawladda Soomaaliya ugu baaqay inay ka laabato go'aankeeda ku aadan waa kuwan qaar ka mid ah dadka oo iyagu dareenkooda cabiraya dhammaan dadka reer Cadaado halkan barnaamijna ay isugu soo baxeen waxay ka cabanayaan cadaalad darrada oo Galmudug loo qaban qaabiyay shirkeeda waxay ka cabanayaan sadbursiga la bixiyay waxay ka cabanayaan anagu waxaan rabnaa inaan warkayga cadeyno maanta dawladda Soomaaliya ma diidanin ra'iisul wasaarahaygii Cadaadan ku soo dhaweynay waa maamuusnay wuxuu noo sheegay in laga tashan doono dhismaha Galmudug laakiin hadda qodbadiisii waxa nooga muuqata in ay si hadal qaladii uu ka soo baxay dadka Soomaaliyeed waxay horumar ku gaari karaan wada jir iyo heshiis iyo wada ogol dawladnimada saasa loo gaari karaa hadii qofkii meel xirta oo dadka daladariska baabi'iyo oo awood ku qabsada la amaal mariyo dhibaato badan baa imaanaysa hadalka ra'iisul wasaaruhu wuxuu furay bayj cusub oo ah cidii meel gasho oo ishubaysa oo awood ku qabsata wadan in la amaal marinayo oo leeyahay bilad geesi baa leedihiin taasi cadaalad darro ku tahay Soomaaliya oo dhan Galmudug bay cadaalad darro ku tahay sadbursi bay ku tahay dadka halka lagu amaal mariyay Cadaaday 2012 ku soo duuleen xaraalay ku duuleen ciidamada qalabka sida xooga dalka Soomaaliyeed ayaa askar fara badan ka laayeen saraakiishoodii baa joogta ayagoo bareelisa inta cidii samaysay hadii la yiraahdo la amaal mariyo de waxa noqonaysa inuu qof kasta ciidan samaysto jabhad meel ku qabsado waxaan rabnaa maqaamka Cadaado ayadan u baahanahay bis only hadaan weyno Galmudugna dhulka hadii taala laga qaadi maayo dawladda Soomaaliyana waxa weeye hadii cadaalad darro nagu sameeyo qof cadaalad darro aad ku sameeyay awlaad khayrka sugeyn waxaan rabnaa waxaan ogolnahay madaxweynaha waxaan ogolnahay dawladda waxaan ogolnahay ra'iisul wasaaraha soo dhaweynay haddana ogolnahay inoo yimaadaan waxaan rabnaa cadaalad in Galmudug lagu dhiso hadii la waayo wixii calaamad su'aalo ka yimaado dawladda mas'uuliyadda soo laabanaysa gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Cadaado Nuur Yaro Xayle oo loo yaqaan Shaar Bacade oo kamid ahaa madaxdii ka soo qayb gashay barnaamijka ayaa sheegay inaysan qaadan doonin cadaalad xumo sida uu hadalka u dhigay waxaan rabnaa marka inaan u sheegno dawladda federaalka Soomaaliya waxa reer Cadaado ay ka cabanayaan waa cadaalad darro waxaan cadeynaynaa inaynan yeeleen haddaan reer Cadaado yeelimayno dhaqankeennii dhalinyaradeenni haweenkeenni dhammaan arrimaha bulshada oo dhan ma qaadanayno ma yeeleyno waxaan doonaynaa xuquuqda aan ku leenahay reer Galmudug waxaan doonaynaa wixii dawladdu ayada ay ku dhawaaqday waxaan doonaynaa wixii madaxweyne Xaaf oo ku dhawaaqay waxaan doonaynaa ballantii oo nala ballamay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre oo yiri wada tashi la sugu soo laabanayna tilaabadaas oo qaaday aadan uga xunahay mana doonayno mana qaadanayno barnaamijkan ay dhigeen bulshada Cadaado ayaa ku soo beegmayay xilli habeen hore ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka qayb galayay xaflad lagu xuseeyay kooda Luuliyo oo ka dhacaysay Soomareeb uu ku sheegay in Soomareeb ay tahay halka lagu qabanayo shirka dib u heshiisiinta iyo midka doorashada Galmudug waxaana intaa wixii ka dambeeyay isa soo tarayay cabashada ka soo yeeraysa bulshada Cadaado waxaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug soo gaaray wafdi uu hogaaminayo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Daahir Cilmi Aadan Indhaqarshe waxaana si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Ugaas Nuur Airport ee magaalada Dhuusamareeb taliyaha iyo wafdiga la socday waxa garoonka diyaaradaha ee Ugaas Nuur ee magaalada Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye iyo xubno ka tirsan maamulka Galmudug sidoo kale wafdiga taliyaha Indhaqarshe ayaa waxa kamid ah taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Bashiir Maxamed Cabdi Ameeriko taliyaha ciidanka asluubta sareeya guud Bashiir Maxamed Jaamac iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ujeedka taliyaasha ay u yimaadeen magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay tahay kadib markii maamulka Galmudug uu aqbalay in magaalada Dhuusamareeb ay ka howlgalaan dhammaan hay'adaha amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya dhawaan ay ahayd ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre in hay'adaha dawladda uu faray inay
ka howlgalaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo dhowaan uu sheegay in lagu qaban doono doorashada maamulka galmudug ha yeeshee wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa waxaa la sheegay inay ku wajahan yihiin degmada guraceel halkaasina waxaa ku diyaarsan boqolaal shacab ah oo ku nool degmada guraceel iyo sidoo kale wafdi ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyagoo sugaya soo dhaweynta loo sameeyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa deegaanada galmudug taariikhiga tagta waxay u leeyihiin inay tala ku nool yihiin marka waxaan leeyahay reer tala ku noolow tub dheer waxaan u soo maray inaan tashanno kow dhaha wada tashanno laba dhaha isla talinno saddex dhaha tawfiiq gaarna afar dhaha isku tashanno keligeen shan dhaha reer tala ku noolow tub dheer waxaan u soo maray tala loo dhan yahay iyo inaan taagno tiir adag turxaan bixinno tabashada galmudug taam ah dhisno uu taageero dhammaan shacabka reer galmudug waa inaan anigoo ku hadlaaya magaca dowladda federaalka kayga iyo dhammaan xubnaha dowladda oo madaxweynuhu ugu horeeyo inaan reer cadaado uga mahad celiyo kaalintii mugga lahayd ay ka qaateen in la udub dhigo dowlad goboleedka galmudug waxaan idinkaga mahad celinaynaa inaad soomaaliya oo dhan isugu keenteen cadaado laga dhisay dowlad goboleed marti soorteen soo dhoweyseen dad badan oo anigu galabtaan ugu dambeeyo waxaan u nimid inaan sii xoojinno aasaaskii aad dhigteen sii horu marinno sii amba qaadno sidaas daraaddeed ayaan idinkugu nimid inaan idinla tashanno si aan ugu heshiinno tallaabadan tallaabada ku xigta mowqifka dowladda federaalka ee ku aadan galmudug waxa uu yahay sida madaxweyne xaaf uu sheegay marar badan in la dhammaystiro dhammaan hay-adaha dawliga ah ee dowlad goboleedka galmudug in la dhammaystiro galmudug reer galmudug oo dhan ay ka helaan adeegyaday u baahan yihiin laakiin si loo dhammaystiro ma ahan dowladda federaalka cidda dhammaystiraysa waa reer galmudug waa idinka annagu idinkaan idinla shaqaynaynaa ma aha inaad idinku annaga nala shaqaynaysaan sababtoo ah galmudug waa idinka ma ahan annaga dheer ayaad bixiseen dadaalna waad bixiseen haddii aad tihiin reer cadaado waad ku ammaanantihiin dulqaadkii iyo dadaalkii aad bixiseen waa inuu midho dhalaa maadaama khibraddii aad leedihiin waxaan idinkala shaqaynaynaa inaan idinkala midho dhalinno waa idinka og soomaalidu inay ku maamaado roob inta uu da-ayo ayaa la doogtaa dhammaan dadka reer galmudug waxay u soo diyaar garoobeen in haddii wax khilaafa uu ka dhex jiray galmudug la xalliyo la isu keeno ummadda laga wada hadlo la sameeyo nidaam shaqaynaya oo ay reer galmudug u dhan yihiin cidina aanay cid sadbursi ku samaynin oo dadka reer galmudug iyagu ay go'aanka iska leeyihiin
waxaan u mahad celinayaa madaxweyne xaaf oo ku bixiyey xoog iyo wakhti iyo maskax oo bixiyey dulqaad dheer oo ka shaqeeyey inuu sii horumariyo galmudug oo ka shaqeeyey dib u heshiisiin waxaan uga mahad celinayaa inuu ku baaqay in galmudug ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe dabadeedna furo gambaleelka si aad u hesho wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelinayno.